ugu dambaysa barnaamijkeena caawa waa su'aasha 361 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum kobahayga ma ka dhigan karaa sutro intaan bacgeliyo xadiidka sunan abu daawud ku yaala min xadiid abi hurayra wuxuu tilmaamayaa ruuxu markuu tukanayo kabaha meesha uu dhigayo wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam midkiin marka uu tukanayo fala yad'ana alayhi an yaminihi wala an yasarihi fatakuna an yamini ghayrihi ruuxu markuu tukanayo kabihiisa yuusan dhanka midig iska dhigin bidixdana yuusan iska dhigin hadii dhanka bidix laga jiro oo ruux kale midigtiisa ay noqonayso markaa halka yuusan dhigin illa alla yakuna an yasari ahad illa inuusan dhanka bidixda cidina ka xigin mooyee oo marka waad dhigan kartaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wal yad'ahuma bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigto nabigu sallallahu alayhi wasallam midigta ha dhigin bidixdana hadii laga xigo kabaha iska dhigin laakiin lugahaaga dhexdooda dhigo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasi abu daawud baa soo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahay xadiid xasan kabaha booskoodu halka way marka horay ma iska dhigi karaa oo ma ka dhigan karaa sutro yani ruux markuu tukanayo waxa sunna ah in uu aduusan marka imaam ku xidhnayn inuu shay is hor dhigo ama darbi isku aadiyo ama shay hortiisa dhigto sida dadka hormaraya ay shayga gadaashiisa u maraan amir nabiga amray sallallahu alayhi wasallam marka shaygii aan is hor dhigahay kabaha ma ka dhigan karaa waa xadiidka daahirkiisa sida ka muuqata sutra ma aha kabuhu la ismana hor dhigay ama dhexda la dhigtaa ama bidix baa la iska dhigaa laakiin baad ahli cilmi baa waxay leeyihiin dib male bay qaar kood leeyihiin xadiidku labada meelood buu sheegay qaar culimada kamid waxaan ka waxay leeyihiin dib male laakiin sida xadiiska laga fahmayo horay haday furan tahay xagga hore iska dhig waa dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka kabuhu sutraha ka dhigan hay soo dhigay allahumma haday ku jiraan mesela sanduuq iyo wax ku jiraan oo mesela sanadiiqda iyagoo kabaha loogu talagalay dadka ka horeeyo kale ee la dhex gelinayo kuwaas oo kale dhib male laana markaasi kabihii sutra kuma waxa sutra ku ah يعني صندوق ستركوا بالغنay ku jiraan baa sanduuq ستركوا masaladaasi marka xadiidka mafhuumkiisa baan tilmaamayaa oo ka fahmayna in aan la is hor dhigin oo labada meelood mid kamid la dhigo wallahu a'lam bis-shawab sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi